قلوب زادها الحب نقاء قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسنا إننا قوم خلقنا قيمون إننا قوم خلقنا قيمون مثل سحب الشوق طرنا كالغمام وبإبداع سعينا للأمام ديننا دين الرقي والسلام إننا قوم خلقنا قيمون من قلوب زادها الحب نقاء قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسنا halkaad naga daawanaysaan waa dacwa TV Ansar Sunna ku soo dhawaada barnaamijka aan ku soo dhaweynayno sheekha ama culimadeena Soomaaliyeed ee ka dhici doonto Nairobi gaar ahaan Islii insha Allah caawa waxaan soo dhaweyn doonaa Sheekh Mustafa waxaan wareysan doonaa Alqari Yahya bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd akhuna wa mahadsantahay waan dhawahay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadiisu ilaahay noo suurtageliyey caawa inaan qayb ka noqono wax ka soo dhaweyno sheekh adaaciye sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo ka qayb ka noqon doona nadwada iyo kulandiimeedka halkan ka qabsoomi doona saacadan waxaan meesha u taaganahay waa soo dhaweynta sheekha aniga iyo dhammaan walaalaha ee jamhuurta meesha joogta aad baan ugu faraxsanahay sheekha iyo culimada ka dambeysay gadaashiisa imaan doontaba waa soo dhaweyn doonaa sharaf bayna noo tahay Allah idin barakeeyo jazaakumullahu khayran waan dhawahay aadna waad u mahadsantahay caawa waxaan meeshan u taaganahay inaan soo dhaweyno sheekheena Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo ka qayb galaya kulandiimeedka Ansar Sunna Trust oo ka dhici doona magaalada Nairobi waa kulankii afraad ee culimada Soomaaliyeed ay isugu yimaadaan magaalada Nairobi sanad kasta oo ay qabato Ansar Sunna Trust aad baan u soo dhaweynaynaa sheekha waxaan leenahay marxaban ahlan wa sahlan wa marxaban bikum dhammaan walaalaha muslimiinta ee ka soo qayb galay soo dhaweynta sheekhana aad bay u mahadsan yihiin barakallahu fiikum السلام عليكم aad iyo aad u dhawahay ma sha Allah waa ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno soo dhaweynta sheekheena Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun sharaf weyn inoo tahay run ahaantii inaan caawa halkan ku u taaganahay soo dhaweynayno sheekheena iyo macnaha culimadeena inta galaba iyo dhamaantood waa soo dhaweynayna assalaamu calaykum waraxmatullah sheekhay sidareemisa dareenkaaga bal ka waran caawa iyo soo dhaweynta ما شاء الله aad baan u faraxsanahay boqolkiiba boqol soo dhaweynta Sheekh Mustafa Xaaji Haaruun ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ka baryaynaa maartay inuu nawaafajiyo inuu sheekha hadda soo galay u yimaado waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed Nairobi ku nool inay ka faa'iideystaan culimada maashahooda aad baan u faraxsanahay waxaan rajaynaynaa insha Allah dulaan kulan kale kulan khayr qab u noqdo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka dhigo mid laga faa'iideysto ka waran dareenkaaga caawa balsiyo ما شاء الله dareenkaygu waa boqolkiiba boqol aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno sheekheena caalimka Soomaaliyeed Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil waxaan leenahay soo dhawow marxaban bika ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa in maaragtay cimrigaada iyo cilmigaadaba ilaahay uu noo barakeeyo ummadda muslimiinta khaasatan ummadda Soomaaliyeedna ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kugu anfacay hana kugu sii anfaca oo ilaahay ku barakeeyaan leena cimrigaada biidni Ilaahi tabaaraka wa ta'ala alxamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan waxaan salaamaya bahda saxaafada iyo madalatu almadaaris alquraaniyah iyo al-Ansar Sunnah Trust Group dhamaan dacwa TV caaw halkan waxa u taaganahay inaan ku soo dhaweyno sheekheena Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil xafidahu Allah ta'ala oo caaw inoo imanayo marka waxaan leeyahay quduum mubaarak imaatin barakaysan ku imow inagoo dhan diyaar waxuu nahay inaan ku soo dhaweyno waxaad timaadeen magaaladaadii waddankaagii walaaladaadii waxa u timaaday dadkaagii shacabka Soomaaliyeed dacwadii diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad baan ku soo dhaweynayaa aadna waan kugu mahadnaqayaa maadaama waqti inoo soo hortay oo imaatinkaaga iyo daa'iminka aad noo imaatayna aad baan kaaga mahadnaqayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم
caawa oo taariikhda ay tahay 19 December 2021 xarunta aan joognana ay tahay Jomo Kenyatta International Airport waxaan soo dhaweynaynaa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun waa sheekh aad wada garanaysaan ghaniyun can taariif waxaa ka horeeyay oo saaka yimid Dr. Cali Maxamed Saalax culimo fara badan ayaa soo socoto waana wada garanaysaan oo mu'tamarka Ansaar Sunna ay qabanaysa ayaa loo soo wada socdaa ka qaybgal wacan وانا ان سلام يا دمانتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته haddana waxaan soo dhaweynayaa sheekh xuseen khaliif oo gaarisa ka socdo ku soo dhawow sheekhay soo dhaweynta sheekh Mustafa iyo dareenka ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم runtii waa farxad aad iyo aad u weyn caawa waxaan joognaa Jomo Kenyatta Airport annagoo sugayno soo dhaweynta sheekha weyn ee caanka ah Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo booqasho dacwo ku soo gaarayo magaalada Nairobi barnaamijkaas oo runtii ay qaban qaabiso muassasada Ansaaru Sunna ee magaalada Nairobi aanan filayo waqtiyo badan in ay barnaamijkaasi ay fulisay marka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntaas iyo amalka jaliilka ay hayso muassasada waxaana leeyahay Rabbi subhanahu wa ta'ala ayeelo fi miisaan xasanaatihim dadaalka iyo dacwada faraha badan oo runtii muslimiin badan ay ka faa'iideysteen anigoo afka Gaarisa ku hadlayana waxaan codsanayaa muassasada in barnaamijkan ilaa iyo Gaarisa inoo gaarsiiyaan oo barnaamijkan oo kale halka nagula qabto ayaan codsi dhiibanaya anigoo ku hadlaya afka Gaarisa County culimada Gaarisa County aad iyo aad bay u mahadsantiin haddana waxay la joogaa ma garabkayga taagan sayidu Soomaal ee awada taqaanaan sayidu Soomaal ku soo dhawow بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا نحمد الله ونشكره caawa waxaan u joognaa halkan Jomo Kenyatta International Airport soo dhaweynta culimada Soomaaliyeed ee ka qayb galaya kulan diimeedka ay qabato muassasatu Ansaaru Sunna Trust Group oo aasaasay sheekha weyn ee daacigaha Sheekh Cabdirasaaq oo ku magacdheen General Jiir halkaas ayaan caawa u joognaa inaan culimada soo dhaweyno qaarkood already waaba soo degeen sida sheekhi weynaa ee Soomaaliya Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun kuwa kalena waan sugaynaa ilaahay baan uga mahad celinaynaa in aan nasiib u helay kulan diimeedkaas halkan caawa waxaa ku sugan culimadii iyo nabadoonnadii iyo saraakiishii amniga oo intaba raba inay u khidmeeyaan culimadaas shareecada islaamka xambaarsan ummadda Kenya iyo ummadda Soomaaliyeed baa markasta tawjiihinaysa marka dawladdanaduna hadee waa dawlad dacwo waa dawlad nabadeed dawladdanada Kenyana waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo maadaama ay saldhig u noqotay mujtamacii Soomaaliga ahaa iyo dacwadii iyo culimadiiba marka aad baan ugu faraxsanahay hadee wixii kalena insha Allah taala waan la wadaagaynaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa bahda saxaafadda iyo miidiyaha si gaar ah Dacwa TV oo li Ansaaru Sunna ay leedahay waa mahadsantiin guuleysta barakallahu fiikum iminkana waxay la taagan generaalka loo yaqaano General Jiir waxaan leeyahay ku soo dhawow general waa ku dhawahay Cabdul Jabbar iyo bahda Dacwa TV oo dhan iyo marti sharafka iyo dadka soo dhaweynaya sheekheena weyn Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo nu soo dhaweynayno hadda meesha boorsooyinku soo maraya xaqiiqatan waa habeen faraxeeda gaarka leh maxaa yeelay wuxuu ka mid yahay habeenkan oo kale habeenada mu'tamarka kulan diimeedka afaraad ee Ansaaru Sunna wax ku oolka u ah maxaa yeelay sabtida soo socota ayuu bilaabanayaa marka soo dhaweyntii baa caawa inoo socota saaka waxaa noo yimi Dr. Cali Maxamed Saalax oo Norway ka yimi haddana waxaa inoo soo socda oo haddaba mar dhow halka ka hadli doono ama idin imanaya idinla hadli doona Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo asaguna London ka yimi annana dee reer Nairobi baan nahayoo waa generaalka iyo ciidankiisii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa sida aanu sheekha iyo culimmada u soo dhaweynayno
in ilaahay subxaana wa tacaala mu'tamarka uu u barakeeyo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtana waxaan fariin u faraynaa inay ka soo qayb galaan si xooggan ooga soo qayb galaan waa kulan diimeed xooggan weeye 12,000 oo qof baanu ku martiqaadnay rag iyo dumar saqiir iyo kabiir marti iyo mudanaba dhammaan mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhowaada waa ansaaru sunna oo mar labaad iyo mar saddexaad idin leh mu'tamarkii ansaaru sunna ee afaraad ee Nairobi ku soo dhowaada baaraka allahu fiikum ku soo dhow barnaamijkan soo dhoweynta Sheekh Mustafa ee kulan diimeedka afaraad ee ka dhici doona Nairobi ka waran bal dareenkaaga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد maanta walaa dareenkeena aad u kacsan yahay waanu ku faraxsanahay sheekh soo galitaankiisa waanu soo dhaweynaynaa waxaanu kale ku soo dhaweynaynaa kulan diimeedka afraad ee ansaaru sunna oo laga qabanayo Nairobi saan ku guda jirnayba ama saad arkaysanba waxaan ku guda jirnay soo dhaweyntii Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun waxaad arkaysanaa أحبابتي iyo ragga soo dhaweynayo barnaamijkaasi sidoo kale insha Allah waxaan nagala socon doontaan barnaamijkaani uu ka dhici doona Nairobi gaar ahaan Islii waxaana ka daawan doontaan Dacwa TV YouTube-keeda iyo Facebook-keeda sidoo kalena TV-ga mahadsanidin